halkan oo deegaanka Hagoogan oo ka tirsan magaalada Buuhoodle ayaa waxaa laga dhagax dhigay ceelbiyoodka ay soo bixisay dawladda Sacuudiga waxaana munaasabada ka soo qayb galay lagu dhagax dhigay ceelbiyoodkan bulshada qaybaheeda kala duwan odayaasha deegaanka waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay maayarka degmada Buuhoodle Muuse Cali oo ka warbixiyay ceelbiyoodkan maanta laga dhagax dhigay deegaanka Hagoogan maanta waxaynu joognaa dhagax dhiga riigii deegaanka Hagoogan riigan waxa soo bixisay dawladda Sacuudi Carabiya waxay soo marisay hay'adda UNDP oo mashruucan fulinaysa waa mahad celinayna dawladda Sacuudiga iyo hay'adda UNDP oo runtii ceelkan fulinaysa waxaan iyana mahad celinayna dawladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweynuhu horeeyo oo runtii deegaanadan oo in badan ahaa dhul lagu muransanaa maanta xuquuqdooda iyo mashaariicoodii soo deynaya waxaan rajaynaynaa ceelkan inuu dabooli doono baahidii biyood ee deegaankan ka jirtay ugana faa'iideysan doonaan horumarka ay ka samaysan doonaan waxyaabo maartay horumarka iyo adeegyada bulshada wax uga taraya xoolihii dhulka dheer u aroori jiray iyo booyadihii faraha badnaa iyo maartay wixiina ay ka raysan doonaan baan rajaynaynaa dadka deegaanka waxaan kula dardaarmaynaa ceelkan waa la idin qoday idinka ayaa iska leh inaad ilaashataan dayactirataan wixii ka xumaada samaysataan aad u aragtaan hanti dadweyne oo la wada leeyahay baan idinkula dardaarmaynaa ilaashada meelo fog baa idinka keenay nasiib baad u yeelateen deegaano badan oo idin la mid ah oo ceelkan xaq u lahaa oo Soomaaliyeed oo reer waqooyi bari ahaa oo gobolka Caan idin la ahaa baan waxba helin maanta mar haddii ku ceel hesheen ceelka ilaashada dayactirta wax weeye waa hanti maguuraana noloshana biyo ka askunta mar haddaad biyo haysataan maanta ilaashada ciidii maskax iyo juhdi ku soo bixisay riigan nawa mahad celinna maamulka gobolka Cayn maayirka gudoomiyaha iyo golaha deegaanka waxaanu iyana mahad celinayna oo maanta shaqadan nala haya meeshan waxay ahayd meel oo manaa oo 50 kilomitir iyo 35 kilomitir iyo 40 kilomitir biyo soo joogaan waa meel aad iyo aad baahida idoo ay badnayd muddo dheer oo ceelka dhulka la deganaa oo dhowr iyo 10 sano laga joogana waxay ahayd biyo dhaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dawladda Sacuudiga ee riigan maanta noo soo gudbisay maanta waxaanu u joognaa dhagax dhiga ceelka Hagoogan oo deep borehole qoday ceel dheer oo ay bixisay sanduuqa Sacuudi litanmiya sanduuqa horumarinta Sacuudiga ayna implement gareynaysa hay'adda UNDP dawladda wasaaradda biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dawladda federaalka iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyo macdanta dawlad goboleedka waqooyi bari ay iska kaashanayaan partnership ay la sameynayaan hay'adda UNDP ceelkan wuxuu ka mid yahay ceelkii 9 ceel oo dawladda waqooyi bari ay inta ay jirtay ay ku guuleysatay 5 kamid ah inay qodo oo ay dhamaysay 3 kamid ah oo awrbugays iyo qaranro iyo kan Hagoogan maanta u joogo oo ayagu ka yimaaday hay'adda UNDP ay implement gareynayso oo maanta u joogno iyo 5 hore u guuleystay oo xariga laga jaray ayuu ka mid yahay 9ka Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle.